ولا الوضع الله عشي مركز عدو شقين وين تاكسي سوق اللابسانة يا ميلا كم يمسبب أنا هذا تارجت فيهاي إنك سوق شام اللي تريها يتاعي لكن وحن كله ذلك يا موضوع بدن وقف هذا تاكسي هرن كم يمسبب كذا دولة نمد وحكوا الشقين كتاعه ما دام حد قدرنا وحول باي كوبس جريتين دولة نمد وقفوا بتوعي كتوعي واي عادي فدرالي كي وحول وذاك الشقين واي nidaam dawli ah wax leeyahay ku abtirsaday deegaan kan kama shaqayn doonaan oo galaasyo la'aan wararka maanta naga soo gaaraya magaalada Caabudwaaq ee gobolka Galgaduud ayaa waxa ay sheegayaan in maleeshiyada hubeysan saaka waabarigi hore ay la wareegeen garoonka diyaaradaha magaalada Caabudwaaq ee gobolka Galgaduud wararku waxa ay sheegayaan in saaka diyaaradihii ka dagi jiray halkaasi ay gabi ahaanba aysan ka dagin isla markaasna hadda ay ku sugan yihiin garoonka diyaaradaha degmada Caabudwaaq maleeshiyad ka careysan dhismaha golaha deegaanka oo ay sheegeen in aysan ka helin xubnihii ay ku lahaayeen golaha deegaanka diyaaradihii ka dagi jiray magaalada Caabudwaaq garoonkiisa ayaa saaka waxa ay badankood ka dageen magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug haddaba wararkii ugu dambeeyay waxa qadka si toos ah ugu jira afayeenka maleeshiyada halkaas la wareegtay عويل عبد الله شاعية عويل هذا مغشو سودو ودوه ولا الآد بعض ما سنتين عديها شرحات كاسيو أيربور كدقمة عابدواق أبارو لحديها بينما حالي أيها إذا من لو ريجين إذا مداد وإذا ما قريب الديجان كاملة كمية وقصنا وقت بدن بيكون نايين وهي كعبانين أو وقت بدن أي كدجين أو ماركتي ما تيجي كلا دوان كدير هايين أبكى قلها ديجان كوسعدو دقمة عابدواق لوجو ودي إن بدن بيصبرين cid kasta oo ay qusaysay waxa la yiraahdo madaxda ciidamadan hogaaminaysa iyo odayaasha beesha ay ku abtirsadaan ba ay oo samajeclaha oo beeshan beel nabad ku sultan oo beel nabadeed ah oo deegaankan waxa la yiraahdo intii qalalaasyaashii kala duwan ay ka dhacayeen dad ku sultanaa iyo dad raad ku lahaa midna aan ahayn oo beel nabadeed ahaa dadka deegaanka degan oo cashuur bixiyaasha oo degan oo lafdabarta oo ana numberka koobaad labaad ka aha markii in badan ay tamajeclanimadoodii iyo wanaagii iyo nabadii ay jeclaayeen ay ku raadinayeen qismiga ay deegaankan ku lahaayeen dadkii ay wax la wadaageenna ay dad kala u siin waayeen waxay u caawdeen oo cabashada ay ka bilaabeen wasaaradda arrimaha gudaha oo Cabdiwaayeel hogaaminayo madaxweynaha dawladda Galmudug Axmed Cabdi Kaaliyo Qoorqoor bay la kulmeen waxay la kulmeen xildhibaanada deegaankan matala oo beeshan si gaar ah dad gaar ugu matala aysan ku lahayn laakiin deegaanka matala haba yaraatee deegaankan dadkan inaysan wax xuquuq aan laga siin baa dhacday oo aan dheg kala loo siinin waayahay waxyaabaha aad ka cabanaysaan Cawil maxay tahay walal deesani waa beel ballaaran deegaanadan degmadan Caabudwaaq hoos yimaada ama gobolka Galgaduud meelo badan bay ka degan tahay waxaa la yiraahdo waxyaabaha ka cabanayaan waxa koow ka ah degmooyinka beeshan ay ku abtirsato oo ay degan tahay waxaba yaraatee xuquuqa ama ka qaybgelin hawlaha socda oo maamul dhisida ay haba yaraatee ma ay jirto waaye waana dadka beelaha deegaanadan ku abtirsada oo beesha sare beel kamida weeye waa beelaha waxa waaye deegaan ahaan majority-ga dadka loo eego kamid ah sida awgeed in badan waxay ku raadiyeen hababka kala duwan oo kale oo maaragtay wax loo raadiyo way suurta gali weeyeen maxay yiraahdeen madaxda markaad la kulanteen oo aad cabashadiina la wadaagteen maxaa la idinku jawaabay
geedaha muuqdaan la degi doonaa waa dhaaf weyne xaajo khayr waa jiri doonaa waad heli doontaan waa mudan tihiin waad leedihiin waa dhaaf weyn wax walbana sidii ayagu ay ugu talagaleen bay u soconayeen inaan caqabadayno oo horumarka deegaanka aan hor istaagno in badan baan iska waansanaynay in badan baan odayaasha iyada iyo caqliga iyaga inagoo kaashanayna iyo siyaasiyiinta iyada arrintaasi aan iska waaninaynay oo aan deegaanka anagoo u turayna aan fadhinay wixii la wada lahaa walaal haddii ay shaqayn waayeen oo wax wada lahaanshihii wax lagu dhisan waaye oo lagu beesgarayn waayey meeshii ugu dambaysay waraabo daalay dagaalkiisaa loo tagaa bay noqotay walaal saakay degmada caabudla khayraboorkeedi waa xiran yahay inaan anagu xirnana kama ay dhigne dadka mas-uuliyiinta oo galmudug arrimaha konsollisida u qaabilsanaa oo wasiirka arrimaha guduhu ugu horeeyo madaxweynuhu ku xigo iyo cid kasta oo waxa waaye arrimahan ay qusaysa ayaa saaka u sababa wixii mas-uuliyad oo ka dhashana ayagaa qaadaya walaal waayahay bal waxaad ii sheegtaa hadda garoonkii waa inii xiran yahay saakay diyaaradihii ka degi jiray caabudwaaq waxaa loo weeciyey gaalkacyo ayay ka degeen maxay tahay tallaabada aad qaadaysaan haddii aan laga jawaabin cabashadiina garoonkiina maadaama aad xirteen walaal sideeda dadku wuxuu deegaanku ku deeqaa in habka wada lahaanshihu uu shaqeeyo oo wadar ogol wax walba loo wajaho wadar ogol haddii ay dhibi weyday haddii la istixgelin waayey oo dad gaari ay dhulka saarteen oo waxa waaye calaamadii qariiradii atlas oo adduunka oo dhan uu dusha saaranayay baa inaga dad waxaan layaa ku sugan baa inoo muuqday maamulkan hogaaminaya caawil yaa weeye dadka gaarka aad sheegayso tunka saartay wasiirka arrimaha gudaha ayaa hawshaa dusha saartay markii la qoloqoleeyo qolada gaarka ah ee asagu uu matalo ayuu keligood inuu wax ka dhegaysto oo wax walbaba ayaga uu ka ajiibo oo golihii deegaanka waxaan la yidhaahdo iyo maamulkoodii iyo habqaybsigoodii oo asagu dhintoosa faraha ula galo hebel iyo hebel iyo hebel ii keena reer hebel bayna ka soo jeedaan oo asaga waxaan la yidhaha qaabtirsada intaan ballaaran oo xubnaha waxaan la yidhaha ugu muhiimsan deegaankan maamul samayntiisii horeeto wax ku lahaan jirtay oo xubnaha ugu muhiimsan qayb ka ahaan jirtay haba yaraatee in waxaan la yidhaahdo ka qaybgalkoodii uu caqabadeeyo mooyaane wax haba yaraatee xitaa cabashatooda inuu dhegaysto waa suurtageli weyde walaal wada lahaanshihii marka hadduu shaqayn waaye nin taagtiisu tallaabsanaya meelaha ka muhiimsan baana hadda taargetku yahay inkastoo qorshe military ay tahay laakiin waxaan kula wadaagayaa goobo badan oo goobta hadda saakay xiran ka muhiimsan baa jira dowladnimadu waxay ku wada shaqayn kartaa oo maadaama hab federaala wax walba ay ku baysgaraysan yihiin dowladnimadu lagu soo dhisay ay ku socotay haddii federaalkii iyo wax wada wadaagii shaqayn waaye nidaam dawliya wax sideeda ku abtirsada ay deegaankan kama shaqayn doonaan ogolaashiya la-aan wayna sii socon doonaan hawluhu intan kuma eka dabcan caqabadaha dadka shacabka la soo dartayo oo deegaan durugsan oo masaafo aad u fog jirta inay saaka shacabkii ka degaan waa caqabad intaas aan ka digaynay oo ay waxaan la yidhaahdo sabab u yihiin dadka mas-uuliyiinta deegaankan ku abtirsada ah laakiin soo lama dhigi karo cawil idinka laftirkiinu waxay ahayd inaadnaan sidaas samayn oo si kale aad xal u raadisaan soo ma wax walba oo xal ah baan raadinay saacada ka hor waxaan ka imid oo aan ka soo fariistay oo cabashada iyadu ay u tilowday oo samareeb baan ka imid heer dowlad goboleed baa cabashada iyadu ay u dhaadhacday oo madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo cid kastoo aan islahayn arrimahan maadaama wasaaradda arrimaha guduhu ay dhagaha naga furaysatay maadaama howlwadeenadii arrimahan fududaynayay oo dhan ay dhagaha ka furaysteen annagoo deegaanka u furayna waxaynu u dhaadhacnay heer federaal iyo wasaaradda ciddii xukuntay haba yaraatee wax xal raadinayoon annaga ahayn waaba arki weyna xalkiina annaga hadda halkaasu nagula soo ururay walaal inaad garoonka xirataan ayuu xalkii ku soo aruuray goob kasta oo muhim deegaankan waa danta guud maadaama aan ka shaqaynayna nalalana fahmi waaye intaasna aan ilaalinayna wax kastoo deegaankan caqabad ku ah
doonista dadkii waxaan la yidhaahdaa aan wax wada wadaagnay ama mas-uuliyiinta ay wax waday mar hadday noqotay keligay baa leh deegaanka inayna keligood lahayn baanu waxaan la yidhaahdo u xaqiijinaynaa bilaabo kasta oo waxaan la yidhaahdo aan taa ku xaqiijinaynana waan qaadaynaa waayahay fariinta u dambaysa oo diri lahayd daawadayaasha ku dhagaysanaya ama ku daawanaya walaal fariinta ugu dambaysa oo halkan aan jeclaan la wadaago wuxuu yahay wax kasta oo dalka Soomaaliya ka socdaay wada lahaanshiyo iyo wada ogol waxaan ahayn kuma socon karaan xubnaha golaha deegaanka oo 22 xubnood awal inay waxaan la yiraahdo yihiin la xusay oo jadwalku sida ahaa waa la furay 23 baa laga dhigay dadka loo furay waa beela inaga waxaan la yiraahdo magaaladan canshuur bixiyaasha labaad baynu ka nahay beelahan markaynu odorasno dad waxaan la yiraahdo deegaanka xitaa sanduuqad kiraahan ka deganayn baa waxaan la yiraahdo lagu cimaamaday oo la yiri idinkaas kale oo xubno loogu dara golaha deegaanka muhiim buu yahay waa waxyaabaha in badan aan la raadinaynay oo aan nabadooda iyo soo dhaweyntooda aan ka shaqaynaynay laakiin sida hadda lagu dhisay kuma uu sii socon karayo kumana aqbalayna canshuur bixiyaal nabadda siday u daadiin jireen ku daadiyana ma noqon doonay haddii aan la idmo waxa aan la wada lahayn deegaankan kama shaqayn doonaan waxaan dawladda federaalka iyo tan galmudug iyo cid kasta oo arrimaha nabadgelyada iyo habsami u socodka daadejinta waxaan la yiraahdo maamulada danaynaysa waxaan fariintayda ugu dambayso oo aan farayaa ay tahay inay arrimahaasi inda ku filan inay ku eegaan oo aragti wadaag iyo waxaan la yiraahdo in dargarnimo ku dheehan tahay tadbursiyo iyo waxaan la yiraahdo aniga keligay waa waxa deegaankan ragaadiyay dhammaan deegaanada Soomaaliyeed ragaadiyay awlaad baad u mahadsantahay adiga mudan walaal waxa ahaa afayeenka maleeshiyada halka la wareegtay garoonka degmada Caabudaaq oo saaka gabi ahaanba wax diyaarado ay ka degin daawada halkan hadda nala soo gaartay ku mahadsanid daawadashadaada iyo dhageysigaaga fadlan muuqaalkan haduu ku soo gaaro share dheh like saar waad mahadsantahay